naarta ugu waarayeen ugu jirayaan marna ayna naarta ayagu kala maqnaanaynin saaxiibowga yada ilaahay أولئك هو أصحاب النار نار صاحب بني روية هم أيبوا فيها نار خالدون كواريا نار تعيي كواريا مرنا نكبس معيا محيري ما دام أي كفر نما عقيدة دهيد كفر استماعين كفر قاسو قلب قدو مكان صدي وحويا عقيدة جوكتا يا ربي جوكتا يا قلبي كتبين حمدود إنكستوين مدلهين فدنا اتقاد كودي أيان مدلهين ساس برادين با عذابكنا اللي قدامين هي مدو صنولين عذابكم عسل كان معاك إنتاج كوجهي والسلام عليكم ورحمة الله عسل كان معاك وقف الله هي آيات الله وقل كنتم يستيذان سورة البقرة كاملة وحنا كنت أسيا يقصص إلى قدرني في كامل من ستسريسة قصوية صدح آيات كنا وقف الله وحد الله بس عنه أخريني بس الله وحي كنت عصنت يدوض أحمرتي نبي إبراهيم إيو قالت النفوك الأنجلي بس الله وحي كنت عصنت صومري ميل طريقة أو قروضي
xabo oo dhulka lagu beeray oo 7 sabuul dhaliyey halkii sabuulna 100 xabo ay ku taalo markaas 700 oo jeer iyo wax ka badanba in loo laalaabayo wallahu ilaahay yubaacifu u laalaabaa liman yashaa qofku doonayo wallahu ilaahay waa subankii waasaca weeye oo fadligiisu waasacayay عليم أبقى كلا لابقى وابن ملعب أيضا كان راسي ورم إليه وحليه سبحانه وتعالى الذين كوا ينفقون بحنية أموالهم حرها بحنية في سبيل الله إلهي جبكي سكو بحنية ثم مكة بدأت لا يتبعون الراسين ما أنفقوا وحي بحيين من قلت شيء الراسين ولا أذن ابن الراسين لهم وإليهم أجرهم أجر كود إليهم عند ربهم ربه ذاكيس كليهم ولا خوف عصينا عليهم كقار معان ولا هم يحزنون كون مرغون إلى معه إلهي وحليه سبحانه وتعالى هو مع القرى بحنية إلهي جدكيس كود بحنية إلهي جدكيس وحى الله ولا خير هو إذن أي الله ولا ومجتمع نفسه وجره إصلاحي سوى وجره كويس باهم واحتكور وجره حوجتي سوى وجره عدو كدفاعي سوى وحي وجرته وحضل وحي خيره أمتع واحترموه مالكي سكوه كبما كوه مالك ولا كبه سنية قلت مالكاس أي بحيان رأسيني قلبيسي عن رأسيني wixii aan leeshay wax ku bixiyeen ama dadkii wax siiyeen galladaysi ay ku galladaysanayaan aan raacsiinaynin galladseeda aan raacsiinaynin waxa weeyaan galladaysigu ama mannigaas qofkii uu wax siiyey in uu tusiyo in uu ku leeyahay fadli dheeraada inuu ku leeyahay waa anigii waxaan ku siiyey waa anigii muxuuha waxaan kugu leeyahay gallad waa inaad muxuuha sidaas oo kaleeto wax ahoo tusinaya inuu asagu gallad dheeraada ku leeyahay taa waxay burisaa qofku wuxuu bixiyey sawaabtu ka helisaa walaa aanan dhibna aan raacsiinaynin dhibkaa waxaa ka mid ah qofka wax taray in uu carabka ku dhigo ama ficil ku dhigo waa ligu kaerkileeyey weligaa dhib kala baxaysid anigaa dulsaar igu tahay waxyaala sidaas oo kaleeto oo qofkii uu ku dhibayo ama hadal ha ahaada dhibkaas ama ficilba ha ahaadee qofkii uu wax taray dhib inuu u geysto taasna waxay burisaa wixii uu taray sawaabtii uu ka heli lahaa ayay ka baabi'inaysaa kuwa sidaas aan samaynaynin ee waxay bixiyeen gallad sheega iyo dhib midna aan raacsiinaynin waxay leeyihiin baa ilaahay leeyahay ajirkooda rabbi agtiisa ayay ku leeyihiinoo ilaahay ayaa ajir u kaylinaya caasina korkooda ma ahaanin maalinta qiyaamada oo horay waxaa ka imaan doono qiyaamadii axwaalkeeda ah cabsi ka heli mahayaan ولا هم يحزنون كون مرغون معه وحي صدى فإن الدنيا أحوال كريه كل مرغون معها قول حضر معروف أو ونعكسا يوم غفلة استلافت أما أسطرت أي خير بدن من صدقة خير بدن يتبعها أو راعي أهل أو راعي إلى الدين الله يعقدين أيه إليه وحليه سبحانه وتعالى حضر ونعكسا sharciga ku wanaagsan hisiga ku wanaagsan oo qofkii aad wax tari lahayd aad kula hadasho masalan aad u ducayso hadal wanaagsan oo asaga farax gelinaya yabowhid aad kolkaa haddaadan wax siinaynin dib inaad wax ka tari doonto aad ku rajo geliso qowl wanaagsan oo sharciga iyo hisiga iyo mucaamaladaba ku wanaagsan iyo wamakfiratun asturid oo qofkii aad asturtid dhibkiisa iyo axwaalkiisa aad asturtid aadan waxba muxuu aha ceebaynin ku kashifin mujtamaca dhexdiisa makfiradaas amaba muxuu ahaa hadduu asagu xoogaa baahidu iyo dhibku u keenay inuu edabtii ka tago sidii edabtii mucaamalada ku habboonayd xoogaa u gafo inaad iska dhaartid oo iska cafisid makfirada laba macnoba lahoo asturid layska asturo oo xaalkiisa iyo baahidiisa iyo dhibkiisa aan mujtamaca lagu kashifin ilaa dadka muxuu ahaa iyagu sharafta leh waxay jecel yihiin had iyo jeer baahidooda xataa inay iska asturnaato ayay jecel yihiin marka qofkii ogaada inuu kashifo ma aha marka asturid aad iska asturto oo dhibkooda aad asturtid ama wamakfiratun dhaafid aad iska dhaaftid oo
dulqaad badan oo kii ilataa ka taga ama kaa manniga iyo la yimid dhibka aan aqaab ku soo dedejinaynin ee u kaadinaya wallaahu ilaahay qaniyunkii hodana weeye xaliimun xaliim ahoo dulqaad leh yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyaanow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqaadkiina ha burinina bilmanni galab sheegad iyo waladaa dhib ha ku burinina kaladii ka iqbaali ladii kii burintiisa oo kale yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa bixinaya ri'aa annaasi liajli muraa'aati nnaasi dadka isusaskooda darteed u bixinaya oo walaa yu'minu aan rumaynin billaahi ilaahina aan rumaynin walyawmi alaakhiri yoonka aakhirana aan rumaynin iyadoo noloshii ambaqaadahayo caddayntii naloo caddaynayay manniga iyo macnaha galad sheegadka iyo dhibka qofkii la dhigo sida sadaqada sawaabkeeda u burinayo ilaahay wuxuu leeyahay asagoo dadkii mu'miniinta u naadinaya oo u dhawaaqaya sifada iimaanka ugu dhawaaqaya war kuwa rumeeyaan oo iimaanka kuwa laga hayo oo tilmaanta iimaanka lahow ha burinina ilaahay leeyahay sadaqaadka aad baxsanaysaan ha burinina galad sheegad iyo dhib qofkii aad wax tarteen aad ku dhigaysaan sidaas sadaqaadkii ha ku burinina waa idinka buraysaay kolkii saas nalooganayay ayaa noloshii caddaynaya haddana sida buritaanku taan u yahay oo mannigu iyo aduhu ay sadaqadii u burinayaan kaladii ka iqbaali ladii kii burinteenkiisi oo kale yunfiqu maalahu maalkiisa bixinaya ri'aa annaasi muraa'aat annaas dadka istuskooda darteed u bixinaya oo walaa yu'minu haddana aan rumaysnayn billaahi ilaahi aan rumaysnayn walyawmi alaakhiri yoonka aakhirana aan rumaysnayn masalan qof laba tilmaamood leh labadaa tilmaamood oo ah kufrinimo inuusan alla rumaysnayn yoonka aakhirana uusan rumaysnayn waxa uu bixinayaa inuu u bixinayo dadku ha ku arkeen lamar hadduusan alla rumaysnayn wuxuu bixiyaba ilaahay darti ma noqon karayaan waxa weeyaan wuxuu u bixinayo dadku ha kugu ammaanayn ha kugu jeclaadayn ha ku yidhaahdeen waa nin waxleh waa nin wax bixinaya waa nin deeqsi ah sidaa ha kugu arkeen dadku ha kugu ammaanayn sidaa unbuu noqonaya kii wax u bixinaya mar haddii uusan alle iyo yoonka aakhira midna rumaysnayn marka ku labadaas tilmaamood leh waxa uu bixiyey eber weeyaan wax uu hadhow ka helayo ma u jirto wuxuu ka helo waxay noqonaysaa haddii un dadkii kolkaas ay ku ammaanaan oo yidhahdeen deeqsi weey intaa unbaa sadaqadiisii sawaabkeedi uu noqonaya haddaba kan sidaas oo kaleeta ah oo kale ha ahaanina ilaahay leeyahy kan alla aan rumaynayn yoonka aakhira aan rumaynayn oo markaas wuxuu bixinaya dadku ha kugu arkeen ama kugu ammaaneen darteed u bixinaya kaas buritaankiisa oo kale ha burinina oo tilmaamaha kaas u lahaa tilmaamahaas oo kale yaan leedin keenin kan tilmaamahaasna munaafaqa weeyaan munaafaqa oo alla aan rumaysnayn qalbiga aan ka rumaysnayn yoonka aakhira aan ka rumaysnayn markaa wuxuu bixinayo dhan dadku ha kugu arkeen mu'min ha ku moodeen ha kugu ammaaneen sidaas uu bixinaya marka kaasoo kale ha ahaanina ilaahi masal kaleeto labaad baa marka haddana nalaga siinaya famasaluhu kaas xaalkiisa iyo masalkiisu ka masali safwaanin dhagax sibsib ah xaalka oo kale weeyaan calayhi dhagaxa korkiisa turaabun ciidu ay tahay oo fa asaabahu uu ku da'ay waabilun roob weyn uu asiibay oo fa taraka roobkii uu ka tegay hu dhagaxii saldan asaga oo maran laa yaqdiruuna ma karhayaan calaa shayin shay ma karhayaan oo mimaa kasaba waxay kasbadeen malaadaba masalka cajabtiisa fiir ilaahi wuxuu leeyahay kaa xoolaha bixinaya istustuska darteed u bixinaya mannig iyo adaa raacsiinaya galad sheegadkiiyo dhibka raacsiinaya kaa xaalkiisu wuxuu la mid yahay dhagax xaalkiisa dhagaxaasoo sibsib ah hase yeeshee ciidu korka ka saaran tahay oo kolkii bidhaanta kore laga arko lamoodaya meesha meel ciid oo wax ka bixi karaan oo roob hadduu ku do muxuu ahaa nicmo iyo beer iyo laga abuuri karayo moodaya dhagaxyadaa kore arkayaan oo markaas roob uu ku daay roob weyn uu ku daay ciiddii uu ka qaaday oo uu soo haray dhagaxii oo eber ahoo maran oo wax ciid ayna saarnayn ee dhagax sibsib ah sidaasoo kaleeta weeyaan haddaba masalkaa kolkaas sii fiiriso waxaa lagu xaalkiisa waxaa leeyahay kan wax bixinaya oo wax sadaqaysanaya isagoon daacad ay ka ahayn dadku ha kugu ammaaneen u bixinaya ha kugu arkeen u bixinaya galad sheegan markaa raacsiinaya iyo dhibid haddii muxuu ammaantii ka waayay dadkii uu dhibhayo oo caayay
joogo waxaas uu bixinayo oo hoosna kufrinimada ku qarinayo waxaa hoos uu ku qarinayo kufrinimada ah ee ah dadku inay kusoo jiidaa daacad xumida ah waa dhagixii hoose weeyaan daahirka korana maxaa la arkaya ciidii baa la arkaya hadhow markuu dhinto wixii uu muxuu ahaa ee dadku arkayeen oo dhan way baahbaahayaan kufrimadii qalbiga ay baa soo baxayso dhagixii sisibka iyadoo kaleeta marka ma helayo wax sawaab oo kaleeto laa yaqdiruuna ma karayaan bay leeyihiin على شيء مكرهيا ومما كسبوا وحي كسبهم كمدا حتى صدقة بعد النروح ياي عمل كسبت أندا لما لغو قوانين سدا أكريتو ويان صلاة واسدا سوكريتو حتى إلهي كسبوا سنتو كريين حكو إلهي ندركو نمو نفسنا نصلي ويو سيان حكو إلهي حكو أكرين أدركو يبو تكني سدا أدركو تكني صدقة سدا سوكريتا إلا مستاي عمل كسبوا لقوانا ينسا سوكريو يمكي daacadu ka maqan tahay waa wax oo ruuxiisu ka maqan yahay waa waxaan waxa uu helaya afkiisa wax sawaabo laga helaya jirin wallahi laa yahdi ma hanuunayo alqawma qowm ma hanuunayo alkaafiriina ee kaafiriina ma hanuunayo ilaahay hanaga yeelo kuwa acmaasha ay gudanayaan oo dhan si daacadnimada ku gudta oo ilaahay dartiisa casharkana maanta intaasu ku yahay wasalaamu calaykum waraxmatullah سورة البقرة كاملة وحنا كسو جرني آياتك وحبحسك وحبحنت سيدة داعد لغو بحيو يو وحبحنت داعد لغيد لغو بحيو أما ولا راسيو لإيو كالديسي وحا إلهي نوصر شيء سبحانه وتعالى دواقي دادك مؤمنين تلو دواقعي اللي أرنهي صدقين كبرنين كالديت كالدسيغت iyo dhigid dadkii aad wax ku sadaqaysateen ama jihadii aad wax ku sadaqaysateen aad ku kaladaysanaysaan ama aad ku dhigaysaan sidii kii maalkiisa istususka u bixiyey asagoon alle iyo yoonka aakhira midna rumaysnayn taas masal bay ahayd masal labaadna waa naloo soo sheegay kaa xaalkiisa wuxuu la mid yahay baa layidhi dhagax sibsib ah oo ciid ay xoogaa korkaa ka saaran tahay oo dadku moodaya meeshaas meel lafay leh oo waxbay inay tahay oo markaa roob uu ku da-ay oo uu ka tegay markaa asagoo maran ee sibsib ah markaas dadkii ayaa lagu maslahayay wax baxsadeen oo markaas gadaal way burinayeen sadaqadii iyo waxay baxsadeen ka raaciyeen ilaahi wuxuu yidhi laa yaqdiruuna kari maayaan calaa shay mimaa kasabuu wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin tanna masal kaleeto weeyaan oo dadkii daacadnimada wuxuu bixiyeen masalna lagu tusinayo haddana waxaa masal labaad oo casirkaa ku saabsanna laga tusaalayn doonaa sida sadaqadu manni iyo adag way u baabiinayaan oo qofka ay ugu daran tahay wamasalu aladiina kuwii xaalkooda yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda bixinayaan ibtiqaa'a mardaati illaahi ilaahay ridihiisa doonideeda maalyaalkooda u bixinayaan iyo wa tasbiitan sugnaansho min anfusi naftooda xaggeeda ahaatay kamatali jannatin beer oo kale weeyaan birabwatin meel kore ku taalla asaabahaa uu ku da-ay waabilun roob weyn oo fa'aatad bixisay ukulahaa miraheedii dabasayni laba jibbaar u bixisay
maysid